asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada komatiya a plus oo inii soo jeedin somali technology solution bay cilmi ciisa casharadeenii inoo sii socon jiray ee ku saabsanaa imtixaanka komatiya a plus loo yaqaano ee lagu barto it technicianka casharka maanta waxaan kaga hadlanaa wax la yidhaahdo tissue amba hardware troubleshooting oo ka bilaabano window boot processka marka windowga ay soo shidmaso ee ugu horeysa waxaad dhagaysanaysaa codka loo yaqaano bos oo laga soo gaabiyey power on self test oo imtixaankana lagu weydiin doono bos waxay sheegaysaa waa feres hal cod oo gaaban oo lagu hubinayo systemku inuu wanaagsan yahay oo caafimaadkiisu okay yahay ayuu sheegaya haddii markaa biibtu inta ay ka badato waxaa jirta cilad xagga hardwareka oo la doonayo in la xaliyo ciladaasina waxaa la dhahaa beep codeska ayaad baran doontiin iyagana waxaan kaloon ka hadli doonaa safe modeka waxa weeye computerka marka la doonayo in wax laga habeeyo amba ciladi ay ku timaado amba virus oo galo safe mode ayaa la tagaa oo ah meesha systemka laga controli karo wixii cilad saarida ee ku saabsan softwareka safe modeku markaa waxaa la isticmaalaa keyboardka ayaa laga tagaa iyadoo la isticmaalayo keyga loo yaqaano F8 ayaa taabanaysaa keyboardka computerka kadibna waxay ku geynaysaa safe mode ayaa dooranaysaa halkaasii socono waxaa kaloo ka mid ah advancing boot optionka bootka amba restarka computerka uu soo shidmo optionadiisa ayaa iyagana faa'iido badan leh oo ay ka mid tahay marka la rabo in disable laga dhigo waxa loo yaqaano drivers amba unassigned drivers amba systemka oo rebooting isku sameynaya mar walba meesha laga maamulo iyadana weeye hardware symptoms xanuunada ku dhaca hardwareka waxaa ka mid a dabka oo systemka oo aad u kululaada ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a systemka oo ur yeesha situation indicators waa statiska wax kuu sheegaya alert waxaad maqlaysaa codad aan wanaagsanayn waxaa kaloo ka mid a excessive heat dab fara badan oo systemku aad u kululanaya ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a noise amba cod aan wanaagsanayn oo aad u qaylo badan ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a smoke iyagoo systemka uu qiiq ka soo baxo waxyaalahaas ayaa ka mid a visible damage amba systemkiioo gubtay ayaad arki kartaa waxyaalahaasi waa waxyaalaha it technicianku inuu ogaado la rabo si uu xaliyo mashaakilkaas troubleshooting amba tissue power problemka waxaa ka mid a main power supply oo xumaata fuska oo gubta cables and connectors oo iyagana xumaada amba jaba iyo waxaa ka mid a power supply unitka oo iyadu iskeedba u xumaata markaad doonaysid waxa inaad ka shaqaysay iyo disconnecti hardwarada kale ayaad ka saaraysaa okay waxaad isticmaalaysaa power supplygu inay caafimaadkeegu u wanaagsan yahay si aad u hubisid waxaad isticmaalaysaa saacadan loo yaqaano multimeter oo electriga lagu eego iyo electroniga labadaba markaa waxaad isticmaal to set to correct measurementiga inaad si hubisid faulty dc-ga iyo faultiga ic-ga dabka dc-ga waa dabka batteryga ic-guna waa dabka
laga dhaliyo generatorka. Resistance iyo intuu awood leeyahay iyo currency iyo dab socodkiisa kuwaas ayaad hubinaysaa iyagana. waxaa kaloo ka midood eegaysaa inaad haysatid voltagekii oo saxa. marka computerka hadduu voltageku hoos u dhaco cillad baa imanaysa, hadduu voltageku intii hore ee loogu talay oo ka batana cillad baa imanaysa iyadana. power supply tester ayaa la isticmaali karaa oo tana power supply test. power in out waxay leedahay dabka gelaya iyo dabka baxaya labadaba waad check garaynaysaa inuu isleeg yahay iyo inuu kala dhiman yahay iyadana. oo P1 on hore usoo baranay iyo Molex iyo SATA power iyo IC adapters power supply tester waxyaalahaas oo la eegayo. advancing boot optionsku sidan uu egyahay markaad F8 taabatid, tani waa Windows 7 ayaa lagu sameeyay. F8 markaad taabatid waxa kuu soo baxaysa sidan meeshan aad uga jeedin, waxa kuu soo baxaysa repair your computer, safe mode with the networking, safe mode with the command point, and amba mise waxaad rabtaa on able boot login, on able low resolution video inaad hoos u dhigtid, oo waxaad odhanaysaa last now good configuration iyadna waa la odhan karaa. waxa kaloo la odhan karaa directory service restore, debugging cilad saarid, disable automatic restore on your system failure, disable driver signature enforcement. waxay ka dhigan tahay disable driverka aan ka registraysanayn Microsoft. so F8 waxayna siinaysaa barnaamijka faraha badan. marka safe modekaas ayaa la dooran karaa. safe modeku markaas sidan uu eegyahay, computerku wuxuu noqonayaa mid driverkiisu liito oo fartiisu ay fool xun tahay, laakiin waa meesha viruska iyo cilada laga saari karo. taasaa safe mode loo yaqaana. kasii socono. safe mode markaa system boot with a minimal drivers and services. inta ugu yar ee driverska iyo serviceka ayuu kusoo baxaya. also waa easy to remove malwarekana waad ka remove garayn kartaa si dhib yar. waxa kaloo ka mid ah safe mode wuxuu kaloo na siinaa network drivers iyo inaan ku xidhano internetka as well. safe modeka wuxuu kaloo loo isticmaali karaa inagoo isticmaali karaa command point. okay, troubleshooting applicationska waxaa ka mid ah waxaan isticmaali doonaa oon hadda tijaabin doonaa task manager mid la yidhaahdo iyo mid kaloo yidhaha event viewer iyo services. marka kuwa ayaan tijaabinaynaa. la socda casharka qaybta kale. computerkeeni waa kan hadda halkan aan joognaa. waxaan leeyahay waxaan tijaabinayaa waxa la yidhaha ms config. so ms config sidaan u tago waxaan tegayaa koornahan, waxaan leeyahay research, waxaan ku qorayaa xaggan run markaan ku qoro waxay soo baxaysaa runteeda caynka u eg. waan ku dhufanayaa kadibna waxaan ku qorayaa ms config. ms config waxay geynaysaa hadda qalad spellingka iga xumaaday, so waa inaan saxo spellingkayga. so wuxuu noqonayaa ms config. ms config markaan ku dhufto waxay geynaysaa meeshan oo very important ah. sidan markay soo baxdo halkani waa system configuration, meesha wax laga bedelo. boot baad tegaysaa. boot markaad dooratid in computerkan hadda aan dul joogno wuxuu waa dual boot amba dual boot. so waxa window 8.1 iyo window 7 labadu way ku jiraan. halkanaad kala doonaysaa kolba midaad rabtid. waxa kaloo option ku siinayaa inta second oo kusoo baxayo time outka. so 30 second baad ka dhigi kartaa. safe mode baad odhan kartaa. waxyaalahaas u leedahay. halkani waa serviceyadii socday runningka ahaa. serviceka istaagay application experience Microsoft compression stop ku istaagay baad leedahay. waan tegi doonaa iyadana. halkaasina waxbaa laga sameeyaa iyadana disable all applications baa odhan kartaa. hadda xaggan waxaa ku jira Kaspersky antivirus baa ku jira, waa running. so applicationadoo dhan baad halkan ka eegi kartaa iyagana. faa'iidadaasay leedahay ms config iyaduna. waxyaalahaas ayaa laga bedelaa inta badan. halkan ayaa timeka laga bedelaa. okay, waxaan kaloo tijaabinaynaa runtii baan ku noqonnaa. mid kaloo waxaan tijaabin la yidhaahdo service.msc. so waxaan leenahay run markaan doorano waxaan ku qoranaa services
MSC enter kadibna wuxuu ku geynayaa meeshan markuu ku geeyo halkani waxa weeye serviceyada computerka shaqeynaya dhammaantood weeye ayaad halkan ka hubinaysaa. So sometimes waxaa dhici karta one of the services inuu shaqeyn waayo oo kuu soo bixi waayo. For example, serviceyada hadda socda eed halkan uga jeediin waxaa ka mid ah background task infrastructure. For example, waad weyneynaysaa sana u jiidaysaa informationka si aad u akhridi. So Bluetooth hand-free servicekeyga waa manually. So haddaan rabo inaan wax ka bedelo waxaan leeyahay star, sidan baa usoo baxaysa waa star garoobaya. haddaan doonayo inaan joojiyo waxaan leeyahay stop, waa joojinaysaa. So meeshan waa serviceka computerka meesha laga maamulo ee waxna laga shido waxna laga damiyo. waa very useful inaad ogaatid. For example, DHCP computer DHCP waa meeshuu kasoo qabsanayay. So halkan wuxuu ina tusayaa inuu local service isticmaalayo iyo passwordkii. taas ayay qabataa iyaduna services.msc. so la socda imtixaanka taana waa in layni weydiiyo waa possibility. task managerkan eeganaa. task managerku for example faylal baan iska furanaa. so faylkii ayaa furmi waaya. halkanaad right click samaynaysaa waxaad doonaysaa meesha ay ku qoran tahay task manager. task managerku markaa meeshan ayuu ku geenayaa. task managerku wuxuu ku tusayaa CPU performancekiisa, CPU inta performance isticmaalayo. so CPU central processor unitkaygu wuxuu isticmaalayaa 6% ama 10% of my CPU memoryga intuu isticmaalayo. informationki waxaan ku siinaya inuu CPU kacsan yahay, inuu low yahay, systemku inuu aad u kululaado. xaggan aad ka eegi karta. marka waxaa kaloo ku siinaya option kale, programyada socda ayaad leedahay iga xidh. so imikanoo kale waa notepadka. halkana waxaan leenahay in task. so waad ka xidhi kartaa iyadana. okay, waxyaalahaas faa'iidooyinkaasu leeyahay. so imika notepadkaas waad arkaysaa waad ujeedin halkaasu notepadka yaala. haddaan idhahdo right click in task wayada automatic u xidhayso. taas ayuu sameeyaa. sometimes waxaa dhada programmada qaarkood inaad xidhi kari weydo, marka halkan ayaa laga xidhaa. faa'iidadaasuu leeyahay. waxaa kaloo laga eegaa performanceka computerka suu shaqeynayo. waxaa kaloo laga eegaa historyga inta user ee isticmaalaysa, inta software ka shaqeynaysa, start appka details, more details xaggan files iyo system inuu wareegaya iyadana ka eegaysa. serviceska laga eegaa iyadana. waxyaalahaas oo dhan bay qabataa. faa'iidooyinka ayay leedahay. okay, halkaas ayaan ku joojinaa. waad mahadsan tihiin. casharkana waa casharkii 33. haddaad jeclaateen ood ka hesheen casharkan oo doonaysiin casharada inaan sii badiyo, subscribe-ka iyo like-ga ha ka iloobin. comment iyo wixii aad su-aal qabtana comment-ka igu soo qor. hadduu ilaahdo insha allah siina shargaree si dadka kale uga faa'iidaystaan. waad mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.